haddaba dawladdan muuse waxaan u sheegaynaa inay ama wax noo qabato amana tirada farmaajo isku dhiiba annaga malaha farmaajo isku dhiibnaa ayaa la qaadan lahaa isagaa nooga qaban lahaa waddada wixii halkan aad arkaysaan waa xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa jiha ahaan waxay dhacdaa koonfurta magaalada Hargeysa dadka ku nool xaafaddan Sheekh Cumar ayaa ah kuwa laga soo raray gudaha magaalada Hargeysa isla markaasina u badan danyar iyo dad aan waxba haysan xaafaddani ayaa ah xaafad la saaxiiba isla markaasina deris la baahiyo aad u kakan oo kala duwan xaafaddani waxay ka aradan tahay baahiyaha aasaasiga sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka baahiyaha ugu waaweyn ee ay tabanayaan dadweynaha ku nool xaafaddani ayaa waxa kow ka ah xaafadani oo aan gabi ahaan balahayn dugsi sare iyo sidoo kale wadada ka timaada magaalada Hargeysa ee soo gasha xaafadda oo ah mid dhibaato iyo silac badani ka soo gaadhay gaadiidka iyo dadkaba 8:00 subaxnimo ayaa waxaanu u kicitinay inaanu tagno xaafaddan Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa waxaanu baska ka soo raacnay istaanka basaska xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa intii aanu dhexda ku sii jirnay ayaa waxay indhahayagu qabanayeen wadada oo aad u burbur badan isla markaasina dhagaxaan badan yaalaan haddaba markaanu waxoogay socnay ayaa waxaanu la kulannay wadadii uu gaadiidku isticmaalayo oo gabi ahaanba dhexda ka go'an oo ay gooyeen roobabkii dhawaan ka da'ay magaalada Hargeysa iyo daadadkii soo rogmaday intaasi kadib waxaanu tagnay xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa waxaanu jidka ku sii jirnay muddo ku siman saacad iyo badh haddaba markii aanu ka degnay ayaa waxaanu dareemaynay jactad farabadan iyo burbursanaan aad u xoogan dadweynaha ku nool xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa ayaa cabashooyin ba'an ka muujiyay wada la'aanta ka jirta xaafadaasi iyo sidoo kale iyadoon xaafadu lahayn dugsi sare oo ay awlaadu wax uga bartaan hooyooyinka ku nool xaafadani ayaa waxay sheegeen in awlaada yaryar ee dugsiga sare ay u tagaan magaalada Hargeysa isla markaasina qofka loo waayo 4000 ee uu baska ku sii raacayo oo maalintaasi iska nagaado ama uu ka baaqsado casharadiisii sidoo kale waxa jirta awlaad aad u yaryar oo iyagu u babacdhiga jidkaasi kakan isla markaasina lugtooda miciinsada oo aada dugsiyada ku yaala magaalada Hargeysa oo ay kamid yihiin Farax Omar Deebguray iyo 26 Juun hooyooyinka iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadda oo cabashadaasi u gudbinayo xukuumadda ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa intii aanu ku Xuseen Caada leeyahay xaafadda Sheekh Cumar baan ka deganahay waxaan soo dawladda ka codsanayna oo sheegana salaantooda horta salaam baba salaaminaa oo dawladda sideedana salaaminba dhibaatada haysatay gaadiidkayga halka taagan iyo carruurayga iskuulkiiba aan tagay ayaan horta ka cabanayna waxaan u sheegnaa dawladda haddaan ka midnahay anagu Soomaaliland ka midnahay waxaan ka codsanaynaa degdegina wadan oo lagu sameeyo oo gaadiidku meel noo soo maro carruurtii iskuulkiisa dhiganaysa meel naga aanu madano ma haysano marka inay degdeg wadan oo lagu sameeyo doonay secretary maleedii oo carruurtii secretary ma lihin wadan ma haysano labadan ugu daran waa labada xad wasaaradda carruurteeda ka lugaynaysa waxaan ku wari roobkii halka ku helaya dhibaato weyn baa la kulmaysa dumarkaygii shaqaysanayay meel aan soo marno ma haysano baabuurkay waxaan ku wari kii noo soo galaba halka soo fadhiisanaya marka waxaan musabbix abdi u sheegaynaa markii horena ballan noo qaado deegaankan waa deegaankaagii waxaan ka codsanaynaa degdeg inuu haagan u soo eego hadduu soo eego waayana Soomaaliyan nahay anagu saacada dugsiga dhaxa waa maxay hayday jooga waa dugsiga hoosana waa jooga dugsi sare ma lihin biyo ma lihin oo badkiyara iskuulka kuwa u dhiga waa bilaa mushaar tawfiiq waa bilaa mushaar halka macalina dhigaana uu ku xisaabtamayo wuxuu ku tagla hooyooyinka u badkiyara haysta 20 kuna laga guro qaar baan laga gurinba oon haysanin oo agoon oo danyara marka macalimiinta iskuulka dhigtana halo loogu sameeyo maxay hayday mushaarkoogii gunadoodii iyo badkiyar iskuulka Cumar no Farax Omar baan ugu dhow way ka lugeeyaan way si lugeeyaan way iska joogaan way ka niyadjabaan carruurtii wadada meel aan marno ma hayno maanta hooyo suuqay tagto habeen waxa ku hooyanayso Ilaahay u baa way kala dhaxayaan carruurtii iyo hooyooyin iyadana soo ku dhacaysa meel meeraysa wadada ma haysan dugsi sare noqotay dugsi sare waxay noqotay dugsi sare ma haysan ardadii waxay ku tagaan waxay ku dhaqaaqaan ma haystaan maanta nool afar ku qof waayay uu iska joogay ilmihiisu iska haysanaya wasaaradda waxbarashada waxaan codsanana waxayna siisay hal bas bana siisay idana soo rartay halkan keentay haday noo soo rartay noo ballan qaaday waxay tiri halka bas ku taga ku soo noqda halka basna sheeganana walaalo noqotay dawladii maxay wasaaradda waxbarashada walaalo noqotay adan la noqotana baski adan helana waan raana adan weynuun waa iska joogo intii aanu ku sugnayn xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa ayaa waxay indhahayagu qabanayeen tiro aad u badan oo basasa kuwaasi oo loo dhigay burbur ka soo gaaray wadada ay intaasi soo marayeen iyo dhaawacyo kala duwan oo ay wadadaasi u geysatay wadada wax ka qabanaysa wali ma naan arag
laakiin ma anta waxaan u baahnayna wadada wax nooga qabto 5,000 oo arday haddaba waxaanu doonaynaa daayartaana siganterigoodii in la baneeyo in aydhkoodii la dhiso in wax la noo qabto dalka dadkii u soo jajabay baanu nahay ee u soo naafoobay ee u soo jabhadeeyey ee u qabtay ayaanu nahay muuse waxaanu kuu sheegaynaa maalintaynu wada riixaynay siikaawiga dhaboolaq aynu ku duulnay abaarso waad garanaysaa habeenkii intaad xiiqday ee tiibaa taagan haddaba waxa weeyaan ha la noo soo diro cid dadkan danaynaysa haddaba markii aanu ka soo noqonnay xaafadaasi Sheekh Cumar ee aanu dib baska u soo raacnay ayaa waxay indhahayagu qabanayeen awlaad ka timiday dugsiyada secondary ee ku yaala magaalada Hargeysa oo u soo socda xaafada Sheekh Cumar iyagoo miciinsanaya lugtoodii kadib markii ay waayeen lacagtii ay ku soo raaci lahaayeen baska ka soo baxaya magaalada Hargeysa isku soo wada duubo xaafadani ayaa ah xaafad deris la ah baahiyo kala duwan balse waxa ay baahi aad u weyn u qabaan dadweynaha ku nool xaafadani Sheekh Cumar sidii ay u heli lahaayeen dugsi secondary ah oo ay awlaadoodu wax ka bartaan isla markaasina ay uga baagsami lahaayeen lugtaasi ay soo miciinsanayaan ay soo aadayaan magaalada Hargeysa